wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa maalmihii u dambeeyay ku sugnaa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. Wasiirka ayaa maanta kulan la qaatay odayaasha waxgaradka iyo salaadinta gobolka Awdal. Kulankani ay goobjoog ahaayeen maamulka heer gobol iyo heer degmo, taliyaha qaybta gobolka Awdal. Waxa goobtaasi iyaguna hadalada iska daba qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo. wixii loo joogaa waxa weeyaan arrin nabadgelyo iyo horumar guud oo gobolka ah. inta maanta laga hadlaya waa intaas. haddaan idin sii taabto hadalku halka uu fadhiisanayo iyo murtida loo socdo maanta ee waftiga loo soo diray wasiirka taaban doona dul joogsan doona. wasiirka ayaa lahaa amarkan aad isugu timaadeen oo yidhi maadaama dee waa sida waajibkuna yahay maadaama dee gobolkii magaalo madaxdii Boorama u yimi inaanu iska tegin isagoo aan dee duqeydii iyo salaadiintii odayaashii magaalada arag annaguna saasaan idin wacnay aadna idinka mahadcelinayaa sidaa u soo ajiibteen. sidoo kalena wasiir ku-xigeenka ayaa ka hadlay in la xoojiyo amniga gobolka Awdal. kullana ku odayaasha ku hayay imika magaalada Saxeemaan joogay kulliyaad waxa arrimo waxaan u nimi ama ha noqoto dhul la isku haysto oo meel kana wax badan ka dhacay meel ma dhaweedo maqlayseen oo ciidanka militariga wax isku xabadiyeen dad shicibi arrinkaas aan horta ugu nimi ugu horeyntii iyo meeshii biyaha iyada qudheeda waxaan ugu nimi arrimo caynkaas aan u nimi marka hawshii dhulka aad intii badneed waan dhamaynay oo inoo dhan taasi xaqii dhulka la isku xabadiyay waa inoo dhan tahay. waxaan saaka doonayaan idin kala hadlo kulli maalmahan waa ogeedin Boorame waxa ka jiray bariyahan daba xataa maalmahan ma ahe buuq yaro hoostu ka guuxaya oo wax saxaana aan la cid sheegahayn haddana hoosta buuq ka jiro. ugu dambayso tii maalintii dhaweyd jimcii markana dhaafay masaajidada dawixii ka baxay waa arkayseen oo culimada magaalada waaweyneyd ayaa soo fadhiistay salaadii jimcaha diinteena waa nasteexo oo diinteenu dee ma ogol xataa qofkii la fadeexayo xataa wax sameeyo qofka hoos wax loogu sheegaa laakiin fadeexadu waa ceeb. culimadu waxay ka hadlaysay oo ay lahayd maxay ahayd ninkii gudoomiyaha gobolka diintu caay wax cadna ma ahayn oo wax hadalka dhibta sii weyn weeyaan waxa la igu yiri ninkaas diintu caay dee wax ma aha aqli galataas waxa la igu yiri qofku markuu wax cad hayo inuu xaydin yiraahdo intaas qof baan dhaariyay intaas qof oo markhaatiyalaan dhaariyay arrintaasi ninka way ku caday marka dambigaas u galay oo salaada oo jimcaada ma xitaa la sugadii hadduu kii hore ka gaarsiin waayay inuu ka dambe la sugaabay laakiin waxa la leeyahay ninkaas diintu ay waa arrin yar oo media la galiyo qofka inta la waa arrin dib badan oo fool xun bay noqonaysaa horta oo bara saabka waxa lagu sheegay haddii ku cadaatarada waa lagu qaadi haddii kalena dee ciidan waxa la leeyahay tiri kulli waa laga dib tagay arrinka waa maxkamadda inuu gudbino oo imika isaga waxa idin maxkamad la soo saaro marka lagu cadeeyo haddii ku cadeeyo waan eegay maxkamadda horgeynina ciidii waxaan tiride haddaba waxaynu u baahanahay wadadii waa la soo bilaabayaa Djibouti iyo Boorame wadada $100 bilyan baa ku baxaya imika waa la soo bilaabaya wax kasta oo carqalada ama waxyeelaa oo ka yimaada goboladan ama goboladan kaleba dhibay hadii ka dhacaan barbara way u keenaysaa. marka horta baleeno arrinkaana culays odayaashu inay isugu tagaan oo wax garadku isugu tagaan oo SDF biyo waxay tirmeeshii ka soo saar karmayna waan ka rareynaa Soomaaliland 200 meelood oo bilaabiya ayaa jira oo biyo la'aan waxa jooga ammaankeeda hadaynu ilaashan karayno oo aynu biyaha u baahanahay biyihii dib loo soo bilaabi doona. shalay waan tagay goobtii meesha in biyo laga soo saariyay dadkii deegaanka waxaan ku dhalaabtaan imika rareeyaa baan ku ori dadkii way baroorteen waxa naga rareen anaga ilaashanayne oo anaga dib dib waxa soo dhici maayaane anaga rareen anaga rareen noo daaya marka idinkuna arkayna si xoojisaan ayaan u baahan insha Allah wax damara dhici maayo sida deegaankiina u ballan qaaday ayaan anaguna u ballan qaadayna hadii la haydo amniga gobolka ina ka shaqeynayna nabadgelyada hadii la haydo aanu ma aqaano qarqarinta waxaan leeyahay nabadgelyo diyaar baanu nahay biyaha in la qodo diyaar baanu nahay wadada in la sameeyo diyaar baanu nahay cidii hadalada khalqal gelinaysan inaan anagu wax ka qabanaan diyaar u nahay in la sii daayo odayaasha iyo cuqaasha xidhan waan ku taageersanahay waanan codsanaynaa waxa meesha ka dhimanna waan garanaynaa waa sunnihii dawladnimo ayaa ka dhiman iyo ninka ragga in la keeno in xeer ciqaabeedkiisii la mariyo intaas bay ahayd horta sunanka ka dhimani mashruuca waxaan leenahay haddaanu duqeydinahay
mashruuca biyaha waa loo baahan yahay waa sidii loogu baahnaa waa sidii Soomaaliland u qorshaysay weeye mashruucaasi ha socdo hawshiisana ha galo haddii aan nahay halka cidda ay ka timiday iyo haddaan nahay walaalaha la dhashayna si cad ayaan horena looga qayb galay maantana haddii la yiraahdo aan looga qayb galaya mashruuca soo socon lahaa waan ognahay waxa weeye gobolku maanta ayuu horumarinaysa ugu cad yihiin day biyaha noqoto iyo hadda wadada noqoto Samiixa Maxamed Cilmi TV-ga qaranka Boorama